gobolkan waxaa la yiraahdaa Shiriran Part run ahaantii dad aad u fara badan ayaa ku nool boqolaal sano ayay jirtaa marba wuxuu ka talin jiray Sultan Tipu nin la yiraahdo waxaa jiray dhaqan xeer sharci intaba balse markaas kadib Tipu markuu geeriyooday nin waxaa soo baxay Hari la yiraahdo iyo waliba nin Keesho la yiraahdo ayaga ayaa maalin walbo meesha fitna ka abuuri jireen gobolkan wuxuu leeyahay saldhig maxkamad talis intaba balse waxa soo dhan waxay hoos imaadaan Hari iyo Keesho ayaga ayaa dadka waxay doonaan ka sameystaa doqon yahow lacagta aan kuu sheegay haddii aad qaadan lahayd maanta horumar ayaad ku fadhin lahayd laakiin adiga hadda doqonkaas ayaad warkiisa qaadan adaa doqon oo damiir lahayn war yacni janaalka waxaan u furtay shacabkeyga inaa ugu daneeyo kanaalkaas anigu waan burburin karaa ma ogtahay midaas maxaa burburi karti mala warya doqon aan damiir lahayna tahay warya daacadda oo noocaad oo kale ah mar walba waxay ku haminayaan inuu qof imaanayo xaqooda oo u dhicinayo taas waa riyo adiga aad ku riyootay waxaa kaloo kuu sii dheer doqon adiga mar walba waxaa jeceshaa in taariikhda ay ku xusto laakiin taariikhda kuma xusayso doqonnimo ayaad u dhimanaysaa adiga ugu wadaba dadka waxay yidhaahdeen qofka markuu xanuunsado digtoor ayaa la geeyaa qofkii kibirkiisa batana Hari ayaa loo geeyaa kanoo kalena dawadiisa aniga ayaa haayo wiilkayga kanoo kale looma baahna wakhtigaaga inaad ku lumisid ee hooshaada cab ayaan ku leeyahay cab hoosha walaalkay aawe war waa la gacan galay wiligayga waxaan fiirsan jiray filmaanta waliba waxaan ka arki jiray hal qof oo 10 nin ay garaacayaan balse maanta indhahayga ayaan ku arkayaa yarkaaga tooraa iska dhigay adiga kuma socon meesha ka carara ayaan ku dhihi lahaa ninkan intaad u gudbin aniga ayaa ku dhameynaayo maxaad dhamay kartaa adaaba 3 kiilo ee waryahoy maxaa naga qaadaysa inta kugu dhameeyna hadda xalkaan ku dilina waana arki doontaa ma ogtahay waraabaha kan aamusan iyo kan qaylinaya kan aamusan inuu khatar yahay ninkaad ku tilmaantay inuu 3 kali yahay ayaa wuxuu soo dhamay kartayga buuggiisoo dhan
raganimo ma ahan 10 qofood inaad hal qof ku dishaan laakiin raganimada waxay ku jirtaa hal qof markuu 10 qof uu dilo kaligiisa waliba fulayga sidiisa buu ulal badan yahay laakiin usha aad qaadanaysa waa inay noqotaa mid waxtar leh oo weliba nin nooc kale lala saaray aniga meesha mar walba waa jeclaa inaan ku duceysto laakiin nasiib waan ogaa markii aabaha la bedel ayaa nasiib u helay ka waran hee waxaa la meesha qofka ku duceysto ducada waa laga aqbalaa mar run baana ii sheeg biyo وكتوبة كم بيان ورنقا تكبان كلها حتى حدنت هدورب أرمونيو شيطان كان أسيقا ما بدي منا عيبيا مرحبا نقا وحان برنا إن أردي تبوتو شيطان كان ما كنت ما حكون رأيك بريدان بيو بيسي ترتيب وعقل هلو كيشو يا أخي قف كان واداوع وحور يالا برطمان مقالة مياشا لقد قامستون كبري عنتو إماتان اسبتال جاي هذا يوداوع عيها مركا دقصوقو إمادي دينك maxaa kugu dhacay wiilkayga walaalkaa wuu fiican yahay maxaa dhiig kolkaa ka muuqdo dadkii walaalkay soo garaacay ayaan anigana gacmaha ka soo gooyay walaal horta aniga nafsadeeda wiil ayaa badbaadiyey wiilka makoo i badbaadiyeyne gabar ayaa biyaha afka igu qabatay gabadhaasaan doonayaa baaritaanka markuu dhammaado kadib 2 maalmood hoostaada ayaan keenaya gabadhaas waxaan rabaa inaan guursado aniga wadna xanuun daawo waa loo heli karaa wiilkayga jiro kale haddii ay tahay xitaa daawo waa loo heli karaa macno ma lahan laakiin adigoo xaas leh inaan naa kala guursanin haltaada maxaad ugu jawaabaysaa ii sheeg hadhow adiga ayay su-aalku weydiinaysaa waatanaa maxaad leedahay markaas hadeer naag inaan guursado aniga yaa dacwo ii dood ka qabo gabadha walaalkay uu ku waashtay sida ugu dhaqsiya badan waa inaad ku keentaan aniga gabadha xaggeen ka raadinaa ciwaankeeda maba naqaanay war gabadha gaashaallaha baadale baa la orinayay madane muxuu yahay hadduu dhalayna walaalkay ayaa jeclaaday runtii gabar waxaa la guursadaa marka adiga dhibaato ay ku haysto gabadha kuu naxariisato gabadhaana waa ay kuu naxariistay adiga inaad guursadna waad ku qasban tahay istaag guduudkaasida soo ma jeedid waabaayo soo ma jeedid dadkoo dhan meesha way ka carareen ninkan weli wuu taagan yahay waa nin sharci yaqaan oo inaad sawirtaa lagaad sheelaysaa facebooka rabaa inaad dhigtano miyaa mudane runtii markii ku soo laabato shaqada aniga aad iyo aadaan uga farxi waana mahadsan tahay yaqay adiga mudan mudane halkoo arrin kalaa jirta ii sheeg runtii mudan aan howlgab markay noqdo dadaa garab iigu sii shaqada inaan ku soo laabto dadkaas inaa ii ogaatidaan u baahanahay intaas taliye walaal harii kunkooy ku doonos walaal harii ah meeshan ma aha ee xafiiska igu sugo soo sheekaya waaye مدن هري نك مقالنا وقتر سواي هديس انت ما دن وين سوي ما دي وعن كل رأسك خابل وانكو سلامي مدن
harii ninka la dhahaayo si wanaagsan ayuu ii ammaanay midaasna waa midaan aniga muteystay fadhiiso wiilkayga fadhiiso waaya waxay ila tahay meel qaldan inaad imaadeen waa maxay waxaad la imaadeen ninkaan aad u jeedid adeerkiis ayaan ahay harii ayaa la dhahaa walaalkiis ka yar ayaa jira keeshu ayaa la dhahaa aad ayuu u qurux badan yahay yaraantiisa wuxuu jeclaa bisooladda inuu ku ciyaar hadda markii uu weynaaday bisooladii ayuuba ku tagayba gabadhaada ayuu jeclaaday waa inaan ku darnaa marka burcadnimadiisa ku faanaya lagama yaabo gabadheedii inaan ku daro waxaan ahay boolis ahaw ama wasiir ahaw waxaad ogaataa mar haddii gacanteena ay qoortaada gaarto surwaalka aad ku kaadinaysaa taariikhda ayaana qoraysa midaas walaalkay gabadhaada mar la kulansii haddii uu dhididka keeni waaye isagaaba nin rag ahayn mar dambe kelmadaas afkaga dib ka soo baxday uu xabad ayaan afkaga gelinaya hore bistooladda adiga aad sheegaysid annagaba waan wadanaa ogow haddii ay taada kugu yaraatana annaga naga soo doono tanna adiga iska xaraysa ayaan ku leenahay markood qofka aniga wanaaga ugu imaana haddii uu diidana burcadnimadeen ayaan tusnaa taasna aniga ma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso gaashaalla adiga si fiican ayaad kaartada u jeli taqaanaa gabadhaada waad diidi kartaa micno ma lahan laakiin hadda hurdadiinna way wanaagsan tahay cuntadana si wanaagsan ayaad u cuntiin hadda waxba idinkama hadlaysna laakiin mid ogow gabadhaada haddii aad isku dayda in aad diiddo waxaa hubanti ah taariikhdaadoo dhan inaad u baasbaxayso dhegaysta dan walbood iga leedihiin xafiiska ayaad igugu imaanaysaan gurigayga dadku ma qaabilo waa markii ugu horraysood qalad gashaan waad yacafiye ee ka taga guriga si fudud ayaa waxaa ku tidhi halkaan ka taga anaga ma baxeeno ilaa aan danteenna ka gaarno hadda wiilkeenna wuxuu rabaa adiga gabadhaasi sharafna inuu ku guursado haddii aad diidid waxaad ogaataa gabadhaada 7 ayuu la gelayaa kadib ayaa la guursanayaa taas aniga ma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso arrintaa waxaa naga xigtay inta walaalkay isbitaalka uu ka soo baxaayo mar hadduu walaalkay isbitaal ka soo baxo naag la'aan guriga ma tegaayo midaasna waa inaad maanka ku haysaa walaal hari dumaashidaa waa taasaa haye dumaashida mustaqbalka shoobing waana si fiican u soo adeegataa arooska ma rabna annaga inaan daahino waan dadejinaynaa nabad wiilkayga nabad haa walaalkayga gabar qurux badan ayaa dooratay adiga midii horena inaad disho waadba ku saxneedba nasiibkaaga waad ku guulaysata ayaan ku gashay yaaway ninka aniga ninka markuu dhimanayo adiga biyaashiinas kaa saara inuu ku guursado kabaran ka sheekay hooy waa maxay waxaan dhacaayana waa 3 awood boolis biskoolad iyo tuugo dadkaana waxay rabaan inay ku guursadaan aabbahana midaas ayuu diidan yahay oo dantiisa ma yaqaana asaga dadkaana afkeena la gala ma ahayn muxuu la galayaana marwo dadkan awjeed naxariis baa ninkan adarkiisa waa ku saxan yahay maxaa yeelay gabarteeda inay wateen seerawan ka yeeteen bacdeena waa dilayna ku dhahay naxariis ma sameeyeen qortay ka jarayna dadkan awjeed waliba unka boolis waa iska nahay iyan boolis unayaan ku dhahay khalada ay galayaan bacdeen unka meesha loo inaan raali geliyo oo tagayna iyan raali geliyeena tasbidaada nimay maanta inay suularta wax lagu ogaadaa markay badato xumaanna cid wax noogu qaadi karta ma laha sababtaas saman ayaan wadanaa annaga mideeda kaleeta ayaga wax walba ha sameeyaano laakiin guusha annaga ayay noo dambaynaysaa in iiddaada khayr u sheeg gabadhaydii gabdhaha run ahaantii hindii ku nool caadi ma ahanaan ku dhahay weliba waxay u dhaqmayaan gabdhaha yurubka imaada camal ma waxay kula tahay hindii inay dambayso hindii way horumarsan tahay way imaadaan u malaynaa aniga nasiib badnayaa saakii iga soo horbaxa nasiibkayga aad ayuu wanaagsan yahay gabadhan aad u qurxan ayaan arkay waa inaan ku dhegsadaa marka waa maasan tahay ku dhahay kale walaalkeeshiyo qofta aruusaya warkaal haddii la maqlin waa lagu ka jiya hata baa ku sheegay dignina ku sheegay qofkan qofka wanaagsan waa inaad raysataa qoftan waxaa gursina keeshuu baay ee keeshuu baay isku taalay keeshuu muxuu yahay hal mar waa la kulma ayay ku ilaabaysaa fishaali cabuurka jeclaad soo midkaas mahana aha هذا عم بتركي أريا أريا ولا لا وفوسي أنا خليت هذا درك كارت هنا وبعدين أريا وياك أردنا وين نقطة هذا يا عجوز هذا أريا قدام بعدات هذا أوغادا قف كورك يسقط طوال لك أصبعها كالي ما حكى قلدنا قف كواي كودي مثلا
naamu waa la tamakeen qoftan waanta aad bay qurux badan tahay waryaa hooy ninkaas ma arkin loo qoftaan usaa jecel aligu kabina afaareeda ka bax adiga kii sugaa sheegiisa xaggayga wuxuu ka yahay canug 3 jira gabar weyn oo 20 jira ma ka faal qaadi karo balse aniga waxaan ahay 20 jira gabadhan oo kalena waa dadka loogu talagal inay la wadaagaan nolosha aniga waxaan bala qaadi karaa gabadhan nolosheeda iyo mustaqbalkeeda in aan dhisi karo aniga noloshan waxay macaan leedahay mataqaanaa markaad jecelkaaga naftaada halis aad u geliso anigana waxaan diyaar waa nafteeda inaan halis u geliyo mid walbo khatar walbo gabadhan darteeda diyaar waxaan ahay inaan u galo noloshan waxay macaan leedahay mataqaanaa markaad naftaada jecelkaada halis u geliso jecelkii ku qaadan maaha weligeed mid ay ilaabayso meel walba guurka ayaa laga sheegoyaa adiga nintooga maxaad u guursanaysaana aniga amarkayga wuu ku dhacoyaa marka maxaa iskaga diidi waysana aniga maa diidi karahe qof walba mustaqbalkiisa asaga ayaa go'aan ka gaari kara adiga markale iska diiday ahayd aabbahaaba gaashaale tuugada maxaa qorta kuu geliyey taas waxay u egta adigoo dil toogasha lagugu xukumo adigaaba ogol iska dhima saaxib mararka qaar waxaa la fiiriyaa duruufta meesha taalana waxay tahay dadkaas waa dad tuuga awoodna way sheeganaya sharciga gacantooda ayuu ku jira aabbihi waa daacad waan ogahay laakiin waxaan u diidanahay inay dhibaato soo gaarto anigana aqli ayaan isticmaalay sidaas ayaan oo aamusay marka ma fahantay aniga aabbihi aad ayaan uga naxaya yaaqib mid kale iska jeclaa oo la baxsano waaba ii fiicnaan leed haddii aan helayo nin aan ogoleen korkayga in la taabto oo geesi ah laakiin waxaan aaminsanahay maalin maalmaa ka mid inaan helayo nin sidaas u fiican oo i jecel aniga aana ogoleen aniga in xaggayga loo soo dhaqaaqo gabdho akhbaar fiican ay dhihaya xarsad ma iskoolka jirto maya wiil cusub iskool ku soo biiray wiil cusub aryaa wiil cusub ku soo biiray iskuulka wiil cusub waryaa gabdha waxay idin sheegaa see loogu ogolaan karaa gabdha iskool dhigtaan nin isku soo biiro nin meeshaan intigaan aan joogo mamnuucay ka tahay adiga nima tiidmiya macalin aniga nin waan ahay laakiin nimanka waxaan dheerahay nimankooda nin kale las meeshaan imaadan aniga raali ma kana qaahay marba ininka anaa idin leh ininkana anaa ileedihiin oo kaale hadda waaba diidantiinmiya naag walba ani gabad inaan ka qabo waryaa hoy doora diikheed ma moogo doorahin diikheed ma moogo damac le qaadaa dalkama ka tegaysaa dama eegi ma dawooshen waryaa hoy idinkaad i ahaleed maxaa dhihi leedahay ninkaas iisheeg baadaan ku weydiiyoyaay iisheeg adaan ku weydiisayele aniga haddii ahaan lahaa si fiican ayaan hab u siin lahaa oo macna waa ku baryaynaa naag nin la'aan ma noolaa karta naga daano adiga iimaanka alla niiga siiyo naag nin laang madoola karta yaa ku yidhi anii tan waaba ka sidhe meeshaa markay ka baxdo shaxaaday magaalada u tagtaa laakiin anii shaxaadkaasaan ka hor joogsaa nin maarkays waryaana cala qabtooshayaaliyo waalidiintiina meeshaan waxbarashaan igu soo dira nima ina soo dhaweysay maa nin haddii la soo dhaweeyay anna li soo dhaweeya nin kale maba soo gelaayo meeshaan soo baxa lamaantiina macalin maxaa dhagaa gashanoysaan adiga qaylidiisaan diidooya waad ku qurux badan tahay macalin waa liigu dhaliyaan ku dhahay soo baxa kan nin ma ogol iimaanka alla ka qaaday قدامي كوسي 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 قدامي منو maxaa qaylinaysaana maxaa qaylinaysaa maxaa la yidhahdaa koolajkaan anila ninka war sharciga hore waa la bedelay sharci cusub ayaa koolajka loo sameeyey miska qaylinaysaa adiga muwaalantahay mawani waxaa ii waxaysaa maamulaha naftirkeed maxaa ku daarin ood la qayb maxaa ku daarin ood qaylinaysaa ay leedahay meeshaan nin ay imaadi nin sas ku soo geli karaa nin aan ani ahayn xasan jilico muu ogola idinkana waa imaanaysid dadkaan soo wati muujada anigay taageeri yihiin ballan waayaan ku dhahay waaya adiga dadkan kugu raacsan dadka waa igu raacsan yihiin exusrana igu raacsan shaqaalaha iyo madaxda dhan ay raacsan yihiin aniga gadaasheeda fiiri haloo jooga muujadid miya aawa hadda waxaad adiga gadaasheeda mala jooga miya ya malisiibta keligiiha maamula raalla ahaaw gabdhahan waxay dheheen waa kula jirnaa nin marabno adle nin noo hadda markii meeshaan imaadina waa ii kala baxeen waa ujeeda dhib ma lahan adiga waxa wanaagsan amarka maamulka uu soo bixiyey inaad diyaar u ahaato kursi walba
oo kollejka ku yaala wiilasha in konta kuraas looga gooyo ayaa lagu talagalay marka sidaa daraadeed haddii aad dood ka qabto adigoon banaabax sameynno carruurta soo shirin waxaa rabaa maamulka inaad u tagto laakiin waxaa kasii wanaagsan inaad iska dhaafto maamulka hadalkiisa runtaa waay bes iga raalli noqon ku dheh anaa gefi ma oho khudbadayda leen ku ekaha naagahana nimanga diubaayin anaanba ku dara raalli ahaaw gabdho adinka waxaad rabtiin wiilasha cusub inaad la kulantiin soo sax maahana laakiin aniga ayaa ninkaga hormarayo midaaba teleefonkiisa gacanta iga saaray okay tartiib yaa qays aniga ayaa nin xalinaya sawiradoodoo dhanna halkan ayay ku jiraan emailka 300 waaye website-kana 600 waaye yaa haddaba ogaada iska soo tuura lacagta maxaa meesha ka dhacayana oh horta ninkan araggiisa ma xuma sida shukulaatadii oo kale aad ayuu u macaan yahay qorshaha uu kuleejka u yimid waa 2 nooc ina annaga ku dheelno ama inuu asaga nagu dheelo aniga gabdhaha yara istrukeyan waxba muhima laakiin naagtan ay fareeja la dhahayo da'mu dhigta dugo dhiman bes igaarkeed camal waay waa istrukeyosa iimaanka ilaahay ka siibi subax wanaagsan macallin subax wanaagsan macallin war adduunya gabdoon inas yahay 7 jir waaye wiila imaadiyay maqashay rosetay afka marsohoysaa bilcaanta birkood mashiixaayaan mudana waa ku salaamay adduunya gabdoonkan arka ninaa imaadile la maqli ajariidhana la soo qaaqaabi iimaanka allah ka siiyo kuwaana mudanaha maxaa daaray واو ويل فرتك حرم يا يمت كلاتك اكشن دي حتى waa khatar gabar kulaajka dhigta ayuu rabaa ayaan u malaynaya soo baxay keenay sawirkana la tusay iyo qaab ahaantiisa hadda ayuuba qurux badan yahay caadi maaha ninkan maxaad tirin sax may waxba ma ahan ee nabixin ninkan okay macallin jeki gabdhahan oo dhan ma anigu keliya isa socdaan mar macallin jeki haddii itiri macalinkaagan gabdhaha waa qaabiley ani laakiin keligay ahay gabdhaha ma la hadli aqaano waan ka baqayaa markaan hore istaago waxaa la rabaa kalsooni isgili macallin jekeyaa kuu duceey waay maxaa sameeya macallin sheeg waa qaabiley haan ku dhahay kalsooni buuxdaan ku siiyey waa duceysa waa mahadsantahay macallin aad baad mahadsan mahadsanidin gabdho magacii waa kaarti krishna kusoo dhawo kuleejkeena mahadsanidin maanta maalinta jacaylka miyaa ubax ayaad gacanta ku wadaaye aragtida koowaad maxaba ayaad nagu reeday maxabada waxaa loogu talagalay dumarka haddii soo dhaweyn laga helayo waa wax wanaagsan anigana waan ku faraxsanahay iga guddoon mahadsanid dhararkaagana miisaankaaga 75 kiilo kalarka jeceshaa balaaga gabdhaha qurxoon ubax waan u badiyaa gabdhaha noocee jeceshaan kuwa faashiyonka gabdhaha faashiyonka nooceed ka heshaan adiga ma noo sheegi kartaa kuwa da'deeda gabar saaxiib ma leedahay maya asxaab ayaan leeyahay jaceylna maya gabar aad ka hesho ma jirtaan maya haddaad heli weysan haddii aan heli waayo nolosha ayaan isdhaafinaa waa balan noloshaa nooga sheekaysay kulankaaga aad ayaa ugu faraxsanahay waan ku salaamay waan kaa qaaday anigu waan ku aqaanaa ma og tahay anigu sidoo kale waan ku aqaanaa laakiin sidee gabar magaalada degan aniga aan aqoon u lahayn wayba yar tahay aniga markii uu samaa faraa xidhnaa ayaan laamiga kuga arkay sharciga waad dhowrtaa adiga aniga sawir ayaan kaa qaaday kadibna facebooka ayaan dhigay waad mahadsan tahay laakiin hal midaan raba inaan kuu sheego wiilka adigu guursanaba ma aha mid kuu qalma dadkoo dhan sidaas ayay dhahaan maxaa dhacay ma iska dhaaftid maxaa sameeyahay duruuf ayaa jirto inaan ogolaado waan ku qasbanaa mana diidi kari haddii ogolaado waa dhib haddaan diidana wayba ka sii daran tahay dhib malaha magacii waa kaarti krishna waxa kale kugu taga fiirahan mahadsanid adigaa mudan kulanka koowaad ayaabad hadalkaada igu qancisay aadaad u mahadsantahay sidoo kale mudane shil labaad ayaa magaalada ka dhacay
maalin cad ayaa dadka la dilayaa xayawaanimada way ballaaratay maxaa kale kiisii walaalkiisa ayaa ka dambeeya adi ma caddayn kartaa gaashaan laatay maxaa wax ugu qaweysa ii sheegbe war dhegeysta hadal meeshaan looma baahna warbixintan dadka idin soo siiyey hal qof markhaati ha ii keeno waxaa idin tusaa wiil iyo walaalkiisa inaan xabsiga gudaha u dhigo haye yaa maanta xiso ma jirto maa tiri seerabtiin idinka seewa waa igu joogjoogsoosiin madaxayga istaagoo siin be macarabtiin kaartig kabadhi ayuu dheelaya asxaabi akhay maxayna soo baxa kaartig maa kabadhi ii dheeloy haddana maanta jag iga dhaha oo kaali kharajo muhiimay ahayd saa in loo dhedheelo haa laakiinse anigii adiga kuma jirna dheeshaan ogow yaa maalin jiki ciyaartan ciyaar rabo dhibaata ma iga imaataan ila keligii ayaa ragka halkan dhib male aboo miixa oo mahadsantan diiq kaligiisa doora dhex ordaayo deb waa ku dhacaa nasiibkiisa isqabaa yaqa isbitaalka ku qaada yaqayo dhaqsada isbitaalka gaarsiin beella waaye be haddiiba gabdhihii nimanka ay wareeriyooyin dhulkani wab ay ku sii ku joojoogsooyin aniga waa foofooriya aan ku yidhi waa foofooriya waan ku salaamay waan kaa qaaday kaliya maxaa halkan ku fariisiyey aniga hal dhib ayaa haysto dhibkaas ayaan inta la fadhiya sidaas darteed waan fakirayaa hadda marka ii sheeg waaye walaalkaarti iyo asxaabtiisa aniga markaan gurigayga aadayo iyo markaan ka soo baxayaba iyaga ayaa i daba socdo teeda kale haddii aniga qof jidka socdo ila hadla xataa qofkaaseeti si xun ayay u garaacayaan dhibaatadaas ayaa aniga haysta dadkaaseeti dad ay dhaafayaan ma lahan inaan meel aada xataa way ii uriyaan aniga cidna lamaba hadli karaba sida darteed iyaga ayaa uga cabsanayaa hay macalin jiki welwelka dhaafgalaan ku dhahay dadka okay adina fasixino haddeeraan galaa gartaan dhegeyso hal maalin keliya dulqaado yuri macalin jiki howshaan waxay ka dambaysa way ku dhammaanaysaa qura free ayay noqonaysaa waa ku baryaa kaarti kaftanka naga dhaafno waryaa waddada noo baneey wargab socda adiga istaag ayaan ku dhahay
walaal waa ku salaamay walaalkayga yaraa waan kaa qaaday noloshayda 2 qof ayaan jeclaaday waa adiga iyo adeerkay adinka dartiinna si aad farxad u heshaan wax walba waan u samayn karaa laakiin adiga waxaan rabaa magaalada ka baashaal aqligaadana waa isticmaashaa war adiga intaad nooshahay walaalkaad magaaladan waa ku raaxaysanaa uma jeed siduu faraxsan jecel ayaa galay runta waa dhib ma lahan asigana hal mar ha guursado jacaylka inta aad ku hayn waxa laga yaabaa in uu burburo taas aniga ma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso maxaa idinku dhacay aniga gabarta gaashaalaha ayaa idin dir wejigiina muxuu sidaan u yahay dhaawacna ayaa idin soo gaarsiiyey wardee haddii nala ogaado ununkoo dhan waa noloda la-aan baan ku leenahay war maxay tahay dhaawac wejigiina ku yaala ii sheega bal yaa idin geystay kan dartiisana u dhacday kan dartiisa ah jidka markaas soconay nin islaameesna u daadaansada beerkana kasoo tuma galey camalana oo laxan jiray dooli haddii aad gambaleel qoorta u gelisaan oo mukulaal aad u dirtaan mukulaasha ii deeda waay aniga ma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso hay gabdho maxaad ugu halkaan u fadhiisiin waxaad u egtihiin dad baashaalahay oo kale oo buug jecel akhrisanayo walaalkeeshu ayaa walaalkishu soo wacay waa ku salaam maanta aniga dib ayaan kugu soo laabtay runtii nafsadeeda adiga ayaa badbaadiyey maanta haddaan noolahayna adiga dartaada ayaa u noolahay marka waxaan kuu sheegaya maanta inaan kuu soo socdo waana kuu imaanaya aad iyo aadaana kuu waxaysay mar dhow isug intaasoo keliya dhibaatada ma ninkii adig ku guursan lahay miyaad ka baqaysaa kale yaqaaniga nin tuuga miyaan guursadaa nafsadeedaba kuma aaminayo ninkaas maanta hadduu tuugaya waxaa laga yaabaa marka uu ku guursado inuu iska daayo oo nin fiican u noqdo bal ka war markaas marka kaale aniga maad rabtaa inaan ninkaas nin fiican ka dhigane nafsadeeda qofkaa rabta ma dooran karo qof walba dooq ayuu leeyahay balse dooqiisa maaha miduu helaayo waxaa laga yaabaa qofka qofuusan rabin inuu helo aniga cabsi darteeda haddii aan u ogolaan waxay kula tahay nafteeda inay ku faraxsan tahay ninkaas aniga ma rabo maxaad udiidaysaa nolol heer sare ay ku noolaan lahayd war nolol heer sare ma rabo aniga nolol farxad le ayaan rabaa aan ku noolaado rii habeen iyo runtaba midna lama qariyo dadkan hortooda ka cadday aniga inaan ku jeclahay adigana aad i jeceshaa middaas inaad ku nabadgeshay ayaa laga yaabaa ogow xishali xageed ii waddaa adiga ii sheeg xishali xageed ii waddaa xishali isdajeedma xageed ii waddaa ii sheeg ilaada la looday halow idhageystadiyow dhammaantiin isku imaad waxaan rabaa dhegeyna inaad i amaahaysaan aniga waad i taqaanaa magacaygu waa fishaali waxaanay dhalay gaashaanlaha gobolka neeti waad ogtiin aniga waxaa laysiiyey keeshu adigana waad wada ogtiin aniga keeshu ma jecli waxaan u ogolaaday daruuf jirta awgeed laakiin aniga waxaan jeclahay kaartig aniga awal awood aan uga hortago ma haysan laakiin hadda waan haystaa kaartig aniga waan ku jeclahay waxaan rabaa inaan kula noolaado adiga ama ogolow ama ha ogolaan nafsadeeda adiga ayay ku rabtaa aad ayaan kuu jeclahay kaartig aniga waan ku jeclahay mana kaa dabaaraa nafsadeeda adigoo keliya ayay kuu baahan tahay kaartig go'aankana gacantaada ayuu ku jiraa kaartig inakeen walaalkaa ku wacay war ma jecli mana u tagayo u sheeg isaga jeclaa ma jeclaa ninkaas waxaas ma qoreen haye arrinta maxaan ka dhahaa ii sheeg maxaan ka dhahaa maxaa la dhahaa waa gelaysaa bak iyo xawada ka dhawey gabar diidan in la kaxeeyo haddii aad idinka xog ku kaxistaan waa calaamada ay burcada leeyihiin amaba lagu yaqaano war adiga yaa tahay magacaygu waa kaarti krishna labalabada aawadiin maahan midaan qaadanaya aniga hey annaga aqoon ma noo leedahay aqoon iska daaya aniga si fiican ayaa idin qaanaa balse ka waran gabar haddii wiil ay tiraahdo waan ku jeclahay wiilkaas hortiisa haddii aad ku kaxistaan wiilkaas maxay ka aaminaysaa inuu doqon yahay aniga waan ku khasbanahay marka kartideeda inaan idin tusay gabadhan inaan jeclahay waxay okaadaya fishaali dhegeyso jecelkaaga yuusan noqon mid aad ninkaas aniga igu reebaysid jecelkaaga ha noqdo midaad ku guulaystee run ahaantii markaad jecelkaaga ii sheegato anigana aad ayaan kaaga helay waana ku jeclaa fishaali fishaali jecelkaaga intuu ila jiro lagama yaabo aniga inaan guuldaraysto hey kan waa kii ina garaacay qof weyn wadkiisa wuu yaqaana haddii aan wejigiisa soo xirta hataa aqoon ayaad ii leedahay sooma imaba ilaabin uriyaha kolleejkan gabdho masaakiin ayaa dhigto balse waxaan ku leela caga dhigo
lakeena walaal ninka waa kaasaa nafsadeeda badbaadino haa waaye ani adiga saaxiib baan nahay halkaa maxaa ka qabanaysaa ninka raggaan looma baahno naagaan rabin inuu guursado ee waxaa loo baahan yahay qof asiga jecel inuu guursado haddii uu guursado qof aana jeclayn nolosheeda way baaba'day asigana sabab ah nolol fiican kama helayo gabadhaas noloshiisna way baaba'aysaa maalintaas marka aan ku badbaadinayn waxaan u baahnaa dadka adiga ku dili lahaa cabsida aad ka qabto in aan kaa baabi'iyo waanu ku raadinaya inaan adiga ku arko waana ku arkay ogow gabadha aad u socoto inaan aniga jeclahay biyo ay ku siiso nafsadaada ay ku badbaadinaysa miyuu jecel kugu gala adiga kaale fiishaaliin waa xaggayga maxaad ka leedahay waryaa ciyaal yar maadaama aad sheegto waad iga badbaadaysaa adiga orodoo iska tag haya walaal bas waa ku barya aniga khaladka aan gale waa ka soo dhaqday mar kale ma u dhaqanayo gabadhaas lamaba raboba walaalkaada ma wuxuu ismoodin magaalkan inuu asiga keliya u taliyo mise wuxuu ismoodin libaxa magaalkan dadka khalad yar markay kaa galaan waad baabi'isaa idinkana qalad markaad gashaan waxaad u baahantay inay la cafiiso maa mala socotaa adiga walaalkaaga masaakiinta dhibaatada aad u geysteen weliba waxay isugu jiraan carruur iyo ciroole dhibaatada u geysteen neef ma ugu bedeli kartaa adigii sheeg markaas waad iga badbaadaysaa inta ka sugaysa lagama yaabo adiga inaad iga badbaado masaakiinta dhibaatada u geysteen neef waa inaad siisaan markaas kadib ayaad iga badbaadaysaa awaar degdegayna soo gaaray ayaa waxay sheegayaan ninka kaysubaay la yidhaahdo la la'yahay ilaa iyo haddartana ma lagu sheegin war waxaa ugu dambaysay markii ay sagaalayeen dhalinyaro badan asagoo ku dhex jira ayaa la yidhi in meeshaas lagu waayey wixii warbixin kalena anaga soo gudbi doonaa rowtiliye ninka kaysubaay shal dagaalka u geliya lagu la'yahay waa la'yahay halo
walaalkay gareesaa loo xiray walaalkay orda ii soo dejiye maxaa u taagantii walaalkay ii soo dejiye socdo tartiib soo deji saarigaas ka furmin saariley kac maciidoosa yaa saarigan ku xiro saan ku galay ninka aniga markii hore nolosheeda badbaadiya ah maanta waa kanaa sidii dumarkoo kale igu lebisa saariyo iyo xore haloogaye waa ii dhamaatay sharafteedu waa u dhamaatay aga dhigo ninkan adinka dartiina leh wax muu samaynin anaka naftirkayna mustaqbalkayna evereska dhiga waryahoy anaka naftirkayna gareeskaas noo xiri inaan u xirnaa ballan ee waryaa kama dhaafeen caabi nimanka yaa bisaaleen nolosheeda ku ciyaare reer anaa kaaga aaray ninkaas reer biisaale yaa la dhaafin ma kuu xiri karo ninkaas saariruu ku helay walaalkay aniga ma dhaafaayo qofka sidaan u galay waa ballan inaan asagana garees u xiro siduu walaalkay ugu xiray oo kale ma daynayo kaas mana iga badbaadayo waxaan isdhahay isaga ayaa ku doogaya maantana waa kanaa horteeda ayuu ku dhintay aniga mar walba waxaan jeclaa meedkeyga asiga inuu laakiin hadda waa kanaa meedkiisa ayaan kuwaya aniga way dhamaatay garabla-aan ayaa igu dhacday maxaan sameeya aniga wiilkeyga waa kanaa meeshaan ayuu maasoo ka watay reer biisaale inaad soo dilna waxwadoodaa soo kiciyeyna ma dhaafeen dhowr mar ayaan kuu sheegay haddii aad hadda war wanaagsan ku hadal aniga hadalkan hore uma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso inta meedkan oo noo yaalo looma baahno wax dhaqdhaqaaqa inaan samayno dhib walbo anaga noola geystayna waa u dul qaadanaynaa aniga hore uma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso kadib ayaan tallaabo sharci ah ka qaadaynaa inta laga gaarayena maan anaga wax dhaqdhaqaaqa in aan samayno ninka wiilkeena sidaan u galayna lagama yaabo in uu naga badbaado kow ayaan ka siinaynaa waan dilaynaa halo walaal kumaa tahay adiga aniga waa neeb ah in lay weydiin meeshaan ka imaaday iyo qofkaan ahay waxaad weydiin kartaa oo keliya sababtaan walaalkaaga sidaan u yeelay iyo asbaabta keentay midaasoo keliya ayaa loo baahanya inaad iga waraysato aniga saqajaannimada walaalkaaga sameynaa ee gabdhaha magaalada ka joogi waayeen asaga waa dulli adigna waad ka sii daran tahay hadda kahor waxaa jiri jira 200 walaalo midna mid kale khaladka ku gal mid kale wuxuu jiri wuu saxan yahay ilaa uu midka walaalkiis ka arko markaas ayuu aqoonsaday walaalkiis inuu qaldanaa marka adiga noocaas ayaa tahay warkaadu wuu weyn yahay wejigaaga mi hor keeni kartaa adiga midaas aabaha ayaa i baray aniga adiga waxaad iga badbaadaysaa mataqaanaa sida walaalkaa oo kale gabdhaha laamiyada kuma qasqashaadid haddii aad gabdhaha laamiyada ku qashaado waxaad ogaataa sida walaalkaa oo kale laamiga in aan ku dhigaayo mana iga badbaadaysid midaasna hore ayaan u ballan qaaday aniga halkan waxaan u imaaday libaaxyada ismahadiyana inaan u dhammeeyo waxaad qalad gashay walaalkay korkiisa markii aad taabatay midaan haddeer waa boorsamiindo filimka waa uu kuu dhiman yahay walaalkaa kaa yaraa ani waan u degay balse asiga wuu ifahmi waaya saas darteed qadka ayuu ka baxay adiga haddaad ifahmi weysan waxaad ogaataa inaad qadka ka baxaysid adiga hadal walbo afkaaga ku soo dhacay waad ku hadashay laakiin aniga hadalkayga si fiican waa inaad u dhegaysataa aniga ballanta aan qaaday sidaydaba waan oofiyaa waxaad ii sugtaa oo keliya walaalkay meedkiisa intaan ka soo asturaayo kadib dunida meel walbo adiga aad kaga dhuumato waxaan ahay qofkii kaa soo saari lahaa mana laga yaabo in aad sinna iiga badbaaddo adiga baasriyo okay haddii sidaas tahay waxaan raadinaa meelaan kaaga dhunto ugu horan googlaha weydiinaaba googlaha haddaan ka helo meelaan kaaga dhunto way ii fiicanta waa kaa dhuumanayaan waan ka xumaa googlahane wuu isoo qaban laahe dhib ma laha ajensigaan tagaaya waxaan leeyahay tikid ii jara oo ninkaas aan kaga dhunto meel igeeyaan leeyahay inta ku sagaysana xafladiinna waad sii wadan kartaan qofka barnaamijyada noocan oo kale ku dhaqaaqa waa qof jecel ahaayo mideeda kaleeta adiga arday ayaa tahay maxay tahay sababta kugu kalaftikiisho inaad dishid aniga waxaan ku dhihi lahay barnaamijyadan faraha kala bax mudana bilaash aad igu eedeynaysaa
kiishu baaya asaga ayaa gacantiis ku dilay dilalka noocaas oo kale maxkamadda waxay ku eedaysaa inuu ka dambeeyey qofka ku kallifay qofkaas gaashaal ma haddaad hurdada ka soo toostay markii asiga iyo walaalkiisa magaalada ay qasaayeen gabdhahan ay kursanayeen waayeelada ay dilayeen adi xaggeed ku nooled ma hurdaysa xilligaas ii sheeg waxaan malaynaya haddaa soo nabdaaday marka hadda adiga amar diidda miyaad samaynaysaa madaxda dalka iyo mas-uuliyiinta haddii ay wax ka qaban waayeen dhibaatada lagu hayo shacabka marka ma diidantaha anigoo kale inaan dhalanayo oo waxna u qabanaa masaakiinta iyo shacabka weliba dad ayaan abaabulayaa oo weliba sideedoo kale ah masaakiinta iyo shacabka iyo waddankooda wax u qabanayo فيديو كبرية استاك فيديو هيدي له كبرية أنا خلينا نخلي لما كفتنا استاك فيديو كن أما كنا فيديو سي أما كسينا يا أخي فيديو أنا إدامية كم كيجا أمريكا جرو أم بنا يشيجيسا والله بنا يا تادي أنا فيديو فيديو هم يا فيديو وكبرية دودا ودور سفلة وكبرية إيه أقولونه أوكي هذا يا نجادي لا قبل جعشان مريكن كأي كناشان ورناجين دبد الجرو مو واحد أم الأسرق إنه قيميان بين أي وشيغان لكن بين له نقطة أنا جا أي دبت تاني واحد هاي ينصو سارايا أنا قبلنا يرانتين أيان اسم قيني قبلنا قرصنا هديتها خوفك أولى أو الشغلة وأذيك لكن مسج كان قفك سوقر أخبط ولا إن أوجدت أذيك dib ma u wacda adreeskeeda ma ogaatana adreeskeeda muxuu yahay ani ma aqaan meel ay degan tahay midda kale guri ay soo bandhigtay ani ma ogolaada ma bilowday beenlow ma nagu cabaysaana naga tag taleefanka haddii uu ka maqan yahay kaartig waxaan u malaynayaa inuu caajisay adig ma caajisana abaan ku baryaa ii aamin haddii aan ogaada gabadhaas waxay tahay oy gurigeen diyaar u noqoto qofta uuraysan u sheegaya waa adiga ii aamin oo ku baryaa ii ogoloo taleefanka inaa isiis adagin balan waayo bal ii waran adiga ma israacsiisana haya qalbigaaga maxaa ku jira ii sheeg qalbigii adigoo keliya ku jiro adigna qaati aan kaa taagana cid kale ma tabar u haayaabani haddaad aniga ii jeclaatid waa balan cimrigaaga inta ka dhiman farxad ayaad ku dhammaysanaysaa fiidyaa adiga kaarta miyaad jeceshahayna hooyaday aabbahay anigoo yar ayay geeriyoodeen kadibna adeerkay ayaa isoo korsaday kaartina weligiis ima dareensiin inaan cidlo ahay laakiin shalay markuu wax walba ii sheegay ayaan ogaaday aniga inaan jecelahay weliba si xad dhaaf ah qalbigaygana oo boos weyn ku leeyahay jaceylka inuu wax jiro yahay qofkana ay wax jeclaan karto waxaan ku ogaaday kaarti markuu noloshayda ku soo biiray markaas ayaan wax walba ogaaday aniga indhahana way i kala furmeen bravo عليك waan ku faraxsanahay maadaama gabadhayda ay wiil jeclaatay taasna waxay caddaynaysaa in nolosha ay qof la wadaagi rabto waan ku faraxsanahay gabadhayda dhegayso 4 beri kadib waa dhalashadaada markaas ayaan kaga faa'iidaysanaynaa oo wiilka runta loo sheegaya okay soo maaha maya aniga ma rabo arrimahayga kaarta in loo sheego waxaan rabaa aniga afkayga wax walba inaan uga sheegto buuggaana waa buuggii hooyaday xasuusteeda aniga wax walba waan jeclahay iyo hooyaday wax walba ay jecleed halkan ayay ku qoran yihiin mideeda kale aabbee iyo hooyaday meeshay isku guursadeen ayay waxay rajadeedu ahayd aniga inaan tago markaas kadibna anin ku guursado sur ayaan aadaya kaartina meeshaas ayaan jaceylkayga ugu sheeganaya aniga waan kugu raacsanahay ra'yigaaga gabadhayda meekab wixii shir aan leeyahay dhan jooji gabadhayda ayaan hindiga u wadayaa sidee kaa noqotay ani markaana ciyaal mihi waxaan ahay qof weyn waana ismaarayn karaa adeer kaarta ayaan soo afduubaya kadibna waan soo noqonayaa soo beela maaha waa soo afduuba ah aroos ma jiro aroos ma jiro samaamaya soo socda yaaqi soo socda ka istaag meesha adi sidee maraykanka waaba ka tegaynaa meesha surweela ka hadlaysaa sunaami ayaa meesha ku soo socda sunaami
وكوسة سلاتها اي صاحب سلاتها دي قدام سوقي يا صباح كانوا السنان لا بقول سلوك محاوس عرتنا سناني اكسر ارتنيا فيديا ودكتور كفتك نوع نقرأ إنك حناقنية runtii hadda ma xanaaqdana adiga كاتك فيديا ولا شيء فيديا ولا شيء انا يا قب هذا وحنا هاي فمي البويو هذه انك كفتك احنا ما هن يا اخي iska dhaaf xanaaqee meesha duu jiifalaa ka waran sunaamiga ka kor imaalahay saxda qadaleena aye بس نقدها يا اخي سي هاي اوكي ما هو هاي على طول هاي مع حرشي ملعب هاي maxaa kugu dhacay maxaa la fikiraysaa walaal ma ila hadashid aba walaalahay ma ka hesha qofta ma ku qanacsi ma ku waca ii sheeg igu wac wariya hoy yarey kaale حاجرة يها أو معناه أبو مدح الذهب خورة الذهب علوش الذهب قعمات الذهب كل هذا الأمور الذهب وطايبه إن من دافتينا وايد تروغينا وايه والله نعرفه لكن حرش مدح على طورة هدي مدح أو قصبح واسك بحسها حرش دو قصبح إنه قفتها وإنه تجيسها وإيه فانت يا ملينا أنا كارتك فرحت أيات كسواتين هاو ملينا فرحت أسمع إذن دمسترها فرحت أسمع إذن كبر برنا معايا الأسحابتي سو أركيا والله باشال يا باور وضوئي باشال اسك جلادين كدن مضي يسو جيسنايو واتوري واكاس هذا كيك وصح يا هاي شيلين كيك وباهنا ولا الحرشي مدح حبك مو قدرت كان باشال كل اسمه هاي ساس بتاني هذا وضع يارين يسي شيلين كيك يسو صار مسألة سبع سوالات تقوليها كالي ورسيكا يا شيخ وريا جوجا كالي أديك وريا فوق أنا قلت أنا وربي إنها وضع عيارنا أديك تحليلي معك سوقي وكبريا وكبريا بدك ما تسكت وكبريا وكبريا ور أنا بعيارتا نوع أنا كلا وانسو عيار تنتي إيجا أنا أي عيار في عن كل عيارة هاي أنا ما إلي عياري سا أنا إنها لا عيارتا أنا قابرة ولكن معكو شيء شرفت هذا أنا كتاون inaan ku ciyaari doon dadka hortooda weliba intaad afkii la soo galay naa ka fiirsta ayaa laga rabay maxaad iga qaadi kartaa adiga aniga waxaa igu ballan dadkan hortooda inaan sharafta kaaga qaado wariyaa qof walba mobile haysto waxaan rabaa inaa qoftaan ka duubtaan waxaan ku samaynaya aniga amarkayga waa ku barya walaalo waa ku barya war naga ku barya maxaa dhacay kaartig aan igu sheeg waxa dhacay فيديو ايش الفيديو لكن حلو لبا ساعة إنا وضع وحرق يابا هل وقت إنا وضع هدو وقت نسمين مقلنا نسيب كينا اسكمت أيوه معنا gaashaale magaalada aanu joogno waxaa ka dhaca mar walba dil dhac kufsi boob waxaas dhacay dhan waxaa u sababay keeshow iyo walaalkiisa iyagoo og in sharci uu ka jiro misle waxay aaminsan yihiin sharcigaba in uu jiibkooda ku jiro
anigana anigu midaas ka damqanaya ayaa keeshow waxaan u xiray garays si uu ceyboobo waayo dhibaato walba beledkan ka dhaca asaga ayaa sabab ah iyo walaalkiisa waxaad adiga samaysay qalad iyo sax wixii ma sheegi karo balse waxaan kuu sheegaa labiskan annaga in noola siiyey in aan xabadaha tuugada ee soo gamaya shafka aan u dhigan oo aan dadka difaacno laakiin labadan nin dartooda sharafdha ayaa noo soo gaartay marka waxaan kaa codsanayaa dadkan inaan laysto wax walbaba anaa xabad ku dhiganayo gaashaalla aniga midaas qalad ayaan u arkaa dadkaasoo kale haddii aan noqdo hub qaato magaaladan oo dhan wada qabuuro ayay wada noqonaysaa keliya waxaan kaa rabaa qaladkaan galay inqaabtiisa in aan maro diyaar ayaan u ahay wax adigu akuto sharcigina kama weynin wax haddii waa martana waan qaadanayaa aniga ma laga yaaba nin daacada adigoo kale inaan xiro sharcigana dembi ka geli maayo iska baxa halkan maxaad igu yeertay war saaxiibtaa sidaad iga dhigta aniga dhan shoobin la-aan noqda hadda shoobinaan rabaa miiraaxaysaane haa nakeen nama waalata maxaa kugu dhacay war aniga ma waalane keesho si uga absata darteed sababtaad aniga ii isticmaasha ii sheeg midaas ayaa rabaa inaan ogaado war waan ku dilayaa ma ku cafinaya toos ii dilno war adiga waxba dheer u malay aniga hooyaday aabahay intaa kadib ayaan iskuulka iskaga joogay adiga dartaa ayaan u joogay adigana waad i qiyaantay ii sheeg sababtaad ii qiyaamaysa aniga fidiya baalanoo kale isku wale aniga kadib lay dil war wajixmadaa maarta fidiya baalan inay kugu soo kor istaagsa maxaa kaa qaldan adiga war maxaa kaa qaldanaad ilaadaha miya aniga gurigeena markaan ka soo baxaya kudha nin walba wuxuu hamiyaa gabadhaan quruxda badan siduu ku heli lahaa adigana jacaylkayga ayaad qoorta ka goysa waa ii sheeg aniga markaan halkaan imaanahay qorshe ayaan u imaaday laakiin waxaa xaqiiqa jacaylkaan aniga kuu qaad markaan ku arkay waa mid daba qof burcada misle gabar bii saynaysa markaan isku dhufto waxaan ogaaday inaad tahay gabadhii riyada qof qorshe u socday qofku warwar markuu arko wuu isku dhiibaa anigana adiga ayaan iskaga dhiibay hortaada naag ma jeclaano ay guriga hobkeena degay inaan degmo biigina iska waran dhib ma laha marba gabadhan dunida ugu jeclaa haddii ay go'aansatay inay lamaano samaysato aniga run ahaantii wax dhibaan u arka malaha aad ayaan ugu faraxsanahay wiilkan wuxuu la yaaban yahay aabbiyo halka taagan oo saan u hadlaya laakiin aniga waxaan hooyo reer magaal ah gabadhayda waxay jeceshaanana waan la jeclahay marka gabadhayda adiga oo keliya ayaa mas-uuliyaddeeda qaadi kara gabadhayda adigaa iska leh waryaada ninkaas waa in aad raadisaan magaaladoo dhanna cabsi inuu bannaanka uga soo baxa ayaan rabaa markuu soo baxane aniga ayaa ugaarsanaayo igama badbaadaayo taasi mid macquul noqonaysa maahan dadka mas-uulkuna nagama cabsanayaan cabsidoodii way ka guurtay qof laga gabanaya ma leh annagaaba qalqiil ku jirnaa markaanaan ku dhahay dadka dhan manala shaqaynoyn hal habeen ayuu atoor ku noqday asaga walaan halkome hoos soo deg wax adag be walaal ganesh mar hore ayaan dhaweeyey kaale soo dhawow soo fariis see kaa noqotay gurigeena maa nagu soo dhaweynaysaa ninkan waxaan rabaa raashinka ugu qatarsan gurigeena in loo keeno sidaa maxaad igu fiirinaysaa waa aniga cadowgaaga walaalkaaga markaan u dhameeyey waxaan umalaynaya hawsha inay dhammaatay balse adiga markaan cagajgelintaada maqlay waxaan ogaaday hawsheeda inay qabiya tahay sidaas ayaan gurigaaga u imaaday qaladka aad iga gelaysa adiga ilaa hadda ma ogid waad aragtay walaalkaaga falxumadaan u dilay isla sidaas ayaan ku dilaya haddaad afkaada xiri weyso hadhowr waxaa la wey doonaa qof adiga meydkaaga gubo amaba duuga carruur iyo cidhoolna adiga ay kuga cayaaraan sidaad ugu cayaarta ay kuga cayaarayaan midaasaa iloobin aniga waxaan maqlay inaad ibaadi goobayso misna aad i raadinayso waxaad ilowsan tahay hal telefoon oo keliya haddii aad isoo dirleed aniga fadhigaa kuga imaan lahaa xitaa kafeeyaad cabayso free ayaan kaaga dhigi lahaa lacag kaama qaadi lahayn aniga calaajabag ayay noqoleyd midda gabadhan ayaa kuu soo hartay waa indhahayga nuurkooda balana waxay ku qaaday nolosheeda inay ila qaybsato balanta inaa ka oofin halkan ay joogaysaa wiilkayga adiga mid tahay iloobin libaax inta uu ka fog yahay ayay fiirsada ku fiican tahay mar hadduu hoosta ka soo galo waxaad ogataa libaaxaas in uu ku cunaayo aniga ma dhihin taariikhda ayaa xusaysa waa run laakiin waxaa ka sii daran ninkii libaax inta u tagay madaxa ka salaxa kadibna qoorta ka gooyey hadalkaaga ayaa hadda wadda igu furantay aniga midaasna ogow ayaan ku dhahay inaad heshiis rabto maxaad igu sheegi weyse waa wiil balaayo iska dhigaayo waxaad ogaataa
qofkii balaayo ku cayaara balaayada inay ku cayaarayso aniga ma dhihin taariikhda ayaa xusayso qofkii bisada iyo qofkii libaxa taariikhda ayaa xusayso marka waqtigeeda la gaaro walaal wadada muu galnaa muu dhammaynaa inta tacsida oo halkii ka dhammaanayso gacan yaa loo qaadin soo niima dhihin anaga ma gacan qaadin dad ayaan u dirayna oo ku dhahay walaal ninkan kalsoonida guriga ku soo gala ayaan la baqayaa aniga maxaa yeelay ninkan waa nin khatar ah lugaha hoostooda ka socayaan ku dhiilahay isku badnaa walaal saaxib meesha mar walba ay farxad noocan oo kale ka dhacda joog waa inaad noo badishaa yakh middan waa caadaysana mid kale isla noqeen middan waa dhacaniga mid macaan badan oo soo saar haddii adaa dhoostaye jabiga bedel wuxuu ka wadaa mataqaanaa wuxuu raba anaga jabigeena in uu bedelo laakiin annaga midaas kama yeelayno annaga jabigeena intaysan bedelin ka hor ayaan jabigiisa bedelaynaa asaga aniga ma dhihin waryahay nimankiya haddii ogoshiin aniga inaan hadlo waa hadlaa raalli aan ka andhaka jawigayga in la bedel diyaar aanu ahay laakiin waa inaad marka hore jawigiina aad bedeshaan goobtan waa inaad keentaan naago qurux badan haddii aad rag keentaan sidii warqadii oo kale ayaan u jeexayaa aniga ragga xaggeygana waxba kama ahan tolkaa tahay ii soo duceeya idin iri dhammaantiina aabi gabdhaahoy quraxlaashin चकने दे टेस्ट तेरा कोई सुनिए साथी ना कमाई सबकी चिंता बनी साथी ना कमाई सबकी चिंता बनी चांदी से मैं तुझको सवारूं साथी ना कमाई आइटम मैं बसोड़ी साथी ना कमाई आइटम मैं बसोड़ी तुझको भी जाऊं आजा मेरे पास साथी ना कमाई तेरा दूसरा सही साथी ना कमाई तेरा दूसरा सही Makai, makai, chapa menya kuyamba ukumbe mampa kauji sombe, chapa hi, ambire enya kuyamba hi, ukumbe mampa kauji sombe, jamuro jambala jambalula nasraminana na hisa turrijana. Ayl badana idageysa adiga
waxaa la gaaray waqtigii wiilkeena anaga aan u aari lahayn qoorta ayaan ka soo gorinaa nakeen adinkana kaartag ninkan anaga akhbaarta beenta waxa uu noogu soo diray waxa uu rabay ninka wiilkeena diray inuu halkan ka fakiyo laakiin anaga midaas kama yeelayno maantana waxaa ogaataa in aan kaartig dilayna cid bini aadan oo naga celin karta ma yarata ma ماذا تقول محايتري معنيه ورياهوي دتك أو بوتيسك عبسها أنيقا ميه لا أنكويري أنا عايزة وحنرلا وجهك وجهي أوكي ما بلا وينقل براو ورياهوي بوتا واحدة ناسي دتك لك عبسها ماني أني مكا عبسها سكين ورياهوي أني من عبسها ميه دلا شيء ولا جوغا دود لي بحن كدنجيغا ورياهوي أني مكولا دقالة ماي أذيقا ننفع حاجة كولا دقالة معني وكاير يا كارتيك adeer 13 maalmood ayaa aniga iscelcelinayay ugaarta aan gaadgaadayna horteyda ayay taagan tahay waa maalintii ugu dambaysay tacsiida walaalkaa meesheed masaakiinta aad raashinka siled ma waxaad halkan u timaaday inaad dagaal iyo fooda abaabusho 10 qofood oo adiga aad soo dirtay haddii ay feri ugu dhuftaan aniga midas waxba uma arka laakiin hal feri aan ku dhufto 10kooda haddii ciidda ka hoos mari waayaan aniga ayaa kuu imaanaya gacantaada weliba sidaa doonta igu inqaab beello waa nin ragga ninka sidaan u hadlay haddii aad dagaal u imaaday yaad u xeeran tahay gacmo furan ku soo dhawow aniga hortaada ayaan taaganaa soo soco hadal badan han ma buuxsha ayaan ku dhahay aniga ayaa ku tusaay waxa aad tahay meeshan ayaana kugu jarjarayaa iska kaydhiya ayaan ku dhahay cid kaloo kula dagaalamaysa malaha adiga markaad walaalkay gacan u qaadaysay soo ma ogeen marka aniga gacanteyda aad soo gasho in aadan iga badbaadeen war dadkoo dhan haddii ay isku yimaadaan cid iga kaa badbaadin karta ma jirto iga kaana gabarta tan soo ma ahan gabadhii aad rabtay inaad guursato hortaada ayaan baasiin intaan ku bilbalan dab qabadsiinayaa haddii aad iga badbaadin karto keena basiinka ku shuba ayaan idhaa basiinka walaal ku shuba si fiican u daawo adigii iska daaya aabbaha xataa ma badbaadin kara ayaan ku soo istaag aniga anaa la siinaya
arday kulanina umaada haka cabsanin maa iska saar walaal wax maa ku gaaray dhammaantood ii soo aruuriya soo socda warya soo socda haye wiil yahow markaan kaa diidayay dadkan arrimahooda inaad faraha la gasho sidan ayaan kuu diidayay maxaa yeelay waqti fiican ayaad akhbaartooda soo gaarsiisa mooye saacaddan way kuma bi'in lahaayeen hadda gacanteeda ayay soo galeen taariikhdaana xusi doonta mar dhow ayaga way u dhammaatee gaashaanle bistoola soo qaadanaysa annagaan ugu kor jaranaysa waxaad ogaataa adigana taariikhda in ay wax kaa qorayso xaafadda awjeed annaga ayaa u tirinay yaa way cidda gacan noo qaadan karta car waa kaas annaga qof soo baxo gobolkan dadka degan niyadda ayagoo ka jaban ninkan ayaa u imaada kalgacayl buuxa ayuu siiyey asagana wuxuu mudanya kalgacaylkiisa in wanaag loogu bedelo akhbaar farxad leh ayaan idiin hayaa maxaa yeele ninkii magaalada qasi jiray maanta gacanteena ayuu ku jiraa sidaad doontaanna waad ka yeelan kartaan fasaxaad u tihiin qofkii dhibaato badan geystaa ogaada mar inay bulshada ku kacayaan oo qoortiisa ay qac ka yarsiinayaan hadalta maxaa samaynaynaa waan isguursanaynaa no waxgarad ayaa tahay guurka wax ka diyaarino okay marka cunugaan dhalano